xoog leh arrin laga sheekay kara ma dhicin waxaa dhacday aniga meeshaan soo maraayay maamo ilmayda haystaan ilmahayga dugsiga aadeen ilmaha markay dugsiga iga aadeen waan raadiyey inaan soo wadaan ilmahayga dugsi ka soo wado gurigayga agtiisa waa meeshu qaraxa ka dhacay waxaa dhacday aniga waa naxay waxaan arkay gaariga micnihii meesha markuu qaraxa dhacaayay wax yar baan ka soo durkay waxaan maqlay markaan xabaar soo socday jugtii oo yeertay jugti markay yeertay waxay igu noqotay argagax weyn because waxaa meesha waan deganahay muddo badanna waan deganaa maqaayadana waan ka adeegan jirnay cuntadaan ka soo gadan jirnay iyadoo bisil meeshaan hormaraayay markaa saa usoo hormaraayay waxaan arkay jugtii oo yeertay iyo anigii oo soo orday iyo ilmihii oon waayey ilmihii markaan waa ilmihii aan ku cararay ilmihii waan waayey ilmihii hal saacaan raadinay uuradii oo isqabsatay iyo adduunkii oo isku ololay iyo de waxaan laga sheekayn karin kolley dhacday xoog labaa dhacday oo micnihii maanta waxay nagu noqotay maalin mugdi ah maalin xalisay noo noqotay yow qaraxa intuusan dhicinaan aniga meesha aan joogay meesha maqaayadda qaraxa uu ka dhacay masaajid ka soo horjeedaan waxaan u tagay inaan ku dukado mootaan watay mootadeeda waxaan ku baakimay meeshaan ku baakimay baawur saarifa marka meesha yimid masaajidka iyo maqaayadda masaajidka iyo maqaayadda inta u dhaxayso baakinkaasoo baawur saarifa meesha ku baakinaa marka masaajidka markaan galayna baawurka meesha ku baakinaa baawurka saarifka masaajidkii aan galnay waa soo dukanay salaadii markii laga faaruqo jamaacada aan soo baxnana dib qaraxa markuu dhacay aniga dib waa u soo laabtaa jaa marka isla markiiba meesha ciidan xirtayba jaanis aan ku galno maba helin bacnaha taliska booliska magaalada Jowhar ayaa faahfaahin ka bixiyay qarax miinada nooca dhulka lagu aasa ah oo saakay goorsii horeysay ka dhacday magaalada Jowhar caasimadda Hirshabelle qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aasa ah ayaa waxa uu ka dhacay suuqa lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala magaalada Jowhar waxaana qaraxaasi uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac bale qaraxa ka dhacay suuqa lagu iibiyo xoolaha ayaa waxa uu ka dhacay qaybta lagu iibiyo geela waxaana qaraxaasi uu salfaday 17 neef oo geela oo ku naf waayay sidoo kalena waxaa ku geeriyooday hal ruux sidoo kalena hal ruux kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa miinada ee lagu aasay suuqa lagu iibiyo xoolaha magaalada Jowhar taliyaha booliska saldhigga Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaraxa ka dhacay magaalada Jowhar gaar ahaan suuqa lagu iibiyo xoolaha waxa uu sheegay inuu ahaa qarax miino nooca dhulka lagu aasa ah oo ka dhacday suuqa xoolaha waxaana uu yiri waxa aan aad uga xunnahay qaraxa khasaaradaha uu geystay waxaana ku daba jirnaa kooxihii halkaasi ku aasay qaraxa oo aan ku raajoognaa soo qabashadooda maanta taariikhdu tahay 28 bishii 9 2024 waxaa ka dhacay suuqa xoolaha ee degmada Jowhar meel agaalkiisa qola oo reerqabayaashii ummadan cadow ku ahayd waxay ku aaseen baashii ay ummadan ku halligayeen ilaahay fadligiis waxaa ku dhintay hal ruux waxaana ku dhaawacmay 3 qof ilaahay caafiyo inta dhibata loo naxariisto aan leenahay cadowgaas ummadan dhagarta maalin walba maleegayo waa caadaysteen ilaahay ummaddiisa qabanaya insha allah anaguna waa dadaalaynaa arrintan dambiseena ugu soo noqon waa ka dadaalaynaa haddana waxaa dhacay waxa waaye 3 qof oo dhaawaca iyo qof dhimasho inta dhibata loo naxariisto inta dhaawacana la caafiyo wax kaloo meesha ka dhac ma jiraan waa meesha lagu asoo meesha ka dambayso hadda jabada oo jeedin hadda goobta ay qarax ka dhacay taaganahay qaraxaas nimanka beledkaas weydii gabadha meesha juqda oo qashqub kale la galeen meelaha oo qashqub yaalla iyo meelaha jabadu yaalla ka faa'iideystaan insha Allah ayagana waxaan inaan laga haaqo ayaan وصلنا وقلنا ملامليد iyo qolada gudoomiyaha waaxda meeshaan jabada kaani waxaan la haaqo marka mas'uulina dhaqaaqayaasha inuu u gudid inta saan ka codsanaa meesha qarax loo go'aanay waxa ku soo baxay ciidanka booliiska qaasatan man action iyo saldhigooda socdo man action markay baareen wax kale oo dhaqaaqayaashu waxay sameeyaan markuu qarax dhaco mid kale ku labaanayaan anagoo ka tacadilayno ayaga dhan waa la baaray oo man action ma baartay markay baareen oo arrintu ay sax noqotay waxa aan kor taaganahay marka saasna waxa ku maasan ciidanka booliiska man action هذا هو ما علينا شغل ولا شغلته بوليسك بوليسك كمدي لكن هو ولا شغلته تصير دق دقون يفرضك أي وصور ده هذا هو ما علينا ما نكشن وأنا الله بعنا وأنا عصينا أنا قرب كذا
iyo taageerada nala soo badiyo waa codsanaynaa